ويديبل وتصو أردوي ويديبل عبد الرزاق علمي عبد الرزاق أو كلسوني ذا أنت هلا اسكو سو قاطي halkeed ka keentay ka waran adiga ceerigaaba soo joogay marka soo weegto buurba waxay ku yar kala duwan yihiin magaalada ceerigaaba iyo buurba taariikhda hijrigu maanta waa imisa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaat kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantii badda wadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii su'aalaha rabadaata oo maanta mar kale ay nagala qayb qaadanayaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama iyo walibana dadweynaha kale asxaabta ee iyagu ku xidhan dhinaca baraha bulshada gaar ahaan xagga Facebook iyo YouTube-ka barnaamijkeena maanta waxa si gaar ah u maalgelinaysa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel taasi oo ku soo kordhisay adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin adeega la yiraahdo dhamays kaasi oo aad ka helayso waa adeeg ay ku wada jiraan kii telefoonka kii messengerka kii dahabka iyo walibana kii koolka waxa kale oo ka helaysaa maanta Somtel adeega saacid oo ah adeega cilad bixiyayaasha adeeg aad haddii telefoonkaagu ka lumo aad number kale intaad garaacda ka xayiri karayso waa adeega saacid waa adeeg ka saacidaya sidii kaarkaaga oo lumay laguugu sugi lahaa sidii lacag kaaga jirta oo numberka biinku haddii uu ka xumaado lacag dahabka kaaga jirta sidii dib laguugu hagaajin lahaa adeega saacid baa waxa soo dhan ka kaafinay ugu dambeyn waxa kale oo jira adeega la yiraahdo kaydso oo isaguna ah nooc kamid ah hagbada kaasi oo waliba u sahlan dadkii iyagu isticmaali jiray hagbada oo maanta Somtel ay u keentay adeegaasi sidoo kale kama maqna adeega eSIM oo simikaadhe kala duwan oo aad lahayd oo Somtel aad ku isticmaali karayso simikaadhadaasi hal moobil oo kaliya maanta markaasi Somtel ay ka shidan tahay kuna soo dhawaada mar kale Ramadaan Kariim barnaamijkeena inta ayna soo gudagelin su'aalaha kala duwan ee barnaamijkeena maanta waxaynu isku dayaynaa inaynu sheegno jawaabta su'aashii hore ee shalay toole oo dad badan ay saxeen laakiin qaar badan ay ka boodeen shuruudaha sidaas darteed ay ku dhaaftay su'aashaasi waxa ku guuleystay Maxamed Cabdilaahi waxayna ahayd su'aashu waxaad sheegaysaa saddexda qof ee Ilaahay ugu hor cadaabaya qiyaamaha marka waa qof qaariya ama quraanka si fiican u yaqaan ama cilmiga kale diiniga aba yaqaan laakiin ha laga sheega lahaa waa qof geesiya oo soo jihaaday oo xagga diinta islaamka u dhintay oo laakiin waa geesi hal lagu yiraahdo lahaa iyo qof deeqsiyo gacantiisu furayd oo wax bixin jiray laakiin sax laga sheego oran jiray ujeedadeenu diyo taan u soconayna waxay ahayd taas saddexaad iyo sadaqadan Facebook gashay in ay acmaashu tahay ikhlaas oo haddii adiga iyo wixii rabbigaadi ka dhaxeeya ay cid kale soo farageliso inay halisteeda leedahay halkaas aynu ku soo koobaynaayo culimadaynu u dhaafaynaa wacdiga kale markana waxaynu bilaabaynaa qaybteena su'aalaha iyo asxaabta kale dadweynaha magaalada ay ag jooga soo dhawow marka hore magacaaga magacaaga Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan oo barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay imika iga horeysa maanta kuugu horeysa laakiin hore ma u aragtay waan arkay aad iyo aad baan bogaadinayaa marka maxaa kuugu yaab badnaayo marka daawanaysa aad aragtay waxa wallahi aad saaq ma si daawan laakiin uga cusub weeye su'aalood ba ku hayaa 1 2 3 4 5 marka number ii dooro number 2 su'aasha waxa dooratay number 2 haddii su'aashan aad ku guulaysato su'aashan number 2 haddii aad garato waxaad heli doontaa abaalmarin ay bixinayso shirkadda isgaarsiinta ee Somtel su'aashan number 2 waa su'aal taariikhiya taariikhda sidee isku tiiri wallahi isku wanaagsan laakiin waan isku dayaa xagga taariikhda su'aashani waa su'aal xagga taariikhiya waxa ku leedahay waxaad sheegaysaa laba qodob oo kamid ah heshiiska loo yaqaano Gadarbuursi Treaty mucaahadadii Gadarbuursiga waa heshiis ay Ingiriiska iyo galeen Gadarbuursigu 1885 والله أنا اسكت أيوة ما الله قضب باغ شيء لما قضب ما تشيء بل سود الدواء ويراني إن قضب شيء كرتا إن قف عطاني كودن
gobolada awdal iyo sali maxaadni ku celi caadi si kalsooni leh u hadal waa laga yaabaa inaad ku guulaysato marka si kalsooni leh u hadal dadkana si fiican u maqashiin in qof cadaano ama ingiriisi uu ku dhalan dhulka aanu ku dhalalin hay talabaadna waa in macdanta iyo khayraadka sax aanay qaadan iyagu waayahay waxa sameeynaa hadda xabadul haafkeeda si fiican u buuxin lahayd waa maanta abaalmarinta si uun baan lahayd laakiin waxa ku rajaynaynaa in marka dambe aad ku guulaysataa diilaana su'aashu waa su'aal taariikhiya waa su'aal u baahan sideeda loo fasiro marka insha Allah marka dambe aad ku guulaysan doontaa diila ilaado weydiiba waad soo orodo weydiin baad leedahay magacaada Cabdirasaaq Cilmi Cabdirasaaq oo kalsoonida inta leegada isku soo qaatay halkeed ka keentay Ilaahay bay siiyay waxaanad garanaynin wax kaaga soo bixi doona ma garanayo haddaan doono waan garan waayahay magacaada ku celi Cabdirasaaq Cilmi Siciid Cabdirasaaq waxaad dooranaysaa 1 ilaa 5 oo laga dhex saaray lambar 2 lambar 2 oo ka dhex saaray waan ka dhex saaray inta kale lambar dooro waxaan doortay 4 lambar 4 baad dooratay صح waaye su'aasha lambar 4 waa su'aal aad iyo aad u dhib yar su'aashan waa su'aasha meesha ku dhib yar balaska wad ruwaayta Ramadan laakiin aan waxaan isleeyahay su'aasha maanta haddaad garan weydo dadkuna waa garsoore waa run inaad su'aashan magaalada iskaga tagto mooyaane wax kale u qalmo war mid ka fudud baa la garan waayaa iska wad soonkana wayna taaraxee su'aashan waxay la mid tahay haddaan si kale kuugu dhigo adoo magacaaga lagu weydiiyo kale marka ma garan waayi kartaa maya way laga yaabaa inaan gartay sheeg su'aashan waxay ku leedahay waxaad si buuxda u sheegaysaa eeg taariikhda maanta aanu kuu sheegaya maanta waa 30kii bishii 3aad 2023 iyadoo hijriye aad toos u sheegaysaa sida aan u sheegay isla mid ah taariikhda hijriga ee maanta waa 1900 waxa ka bilaabay dheydkan ka bilaabay u fiirso waxa ku yidhi waa 30kii bishii 3aad 2023 waa miilaadigii Soomaa taasoo hijriyo maanta aad sheegaysaa maanta waa imisa waa 1966 afcalabi wallahi sigisa carabi horta baristeji soo yara jeeso horta dhibta dhacday waxa weeyaan u fiirsasho la'aanta soo jeeso su'aasha ku weydiinay horta si degan u faham waxa ka rabaa taariikhdu maanta waa imisa taariikhda hijrigu wadbal waa imisa taariikhda hijrigu maanta waa imisa ma garanayo insha Allah marka dambe ayaad ku guulaysan doontaa maanta aad garan weyday aad iyo aad buu maadsan yahay marka dambe laga faa'iideysan doonaa maadaama waxa ku sii qoslayaa su'aashii ugu dhibta yareed baa u soo baxday marka soo soco sheekh marka su'aalaha lambar 2 iyo lambar 4 baa la doortay 1 ilaa 5 labada ka bood maxaad soo qabani lambar 3 baan soo qabani su'aasha lambar 3 baad soo qabanaysaa su'aasha lambar 3 waa su'aal aad iyo aad u fudud waana su'aal diiniya su'aashani sheekh lawaad ku soo baxday sidaa darteed waa su'aal waa isku timitay insha Allah waxa filayaa iyo ku rajaynayaa waliba adoo kale in insha Allah su'aasha si fiican u garan doonto su'aalaha diiniga ay isku tihiin kullay waa isku fiicanahay intaan ogahay aad baan isku fiicanahay waaya waxa jecelahay inaa wadada yar furto walaal adoo raaliya dad badan baa inoo xanimaya waayahay su'aashan waxay ku leedahay lambar 3 waxaad sheegaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyay 7 samaba wuxuu ku sii maray ambiyada qaar ka mid ah sama kasta nabi buu ku marayay marka waxa jirta hal sama oo uu 2 nabi ku maray su'aasha marka laba isugu jirta samada imisaad bay ahayd labada nabi say kala ahaayeen samada 3aad bay ahayd labada nabi waxay kala ahaayeen nabi ciise iyo nabi yaxya صح ku noqoto hore waayahay tad waxaan ku noqdo waxay ahayd samada 2 samada 2 bisha 3aad baa tiray ma talabaad iyo 3aad mid ku adkay talabaad
talabaad waa sax weeye labada nabiyina waxay kala ahaayeen nabi ciise nabiyullaahi ciise iyo nabiyullaahi yaxya labada nabi habroodaag bahayeen bali maxaa tafaasiiloo kale ka haysa ambiyada kulli qisaskooga waan akhriyay mararka qaar labada nabi habroodaag bay ahaayeen nabi ciise nabigii bila aabaha ilaahay abuuray buu ahaa ruuxdii ilaahay ku abuuray nabi yaxya nabigii aabihii bila awlaada ku inta badan ahay ku ducaystay buu ahaa xilli aan waxba la dhalin ilaahay siiyey aboodaha ilaahay marka su'aashaasi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa daawadii waa ka qayb qaatihii ugu horreeyey ee maanta ku guulaysta waxaan ku siinaynaa abaalmarina bixinayso shirkadda Somtel waxay soo kordhisay adeegyo kala duwan waxaa ka mid ah adeegga dhamays oo aad ku wada shubanayso internet iyo prepaid la socda waxaa ka mid ah adeegga saacid oo haddii lacagtaadu ka ciladowdo iyo dahabka aad adigu gacantaada ku farsamaysanayso haddii telefoon kaa lumo simikaarkaagii Somtel ku jiray adiga farsamaysanaya waxa jira adeegyo kale oo ay ka mid tahay in yaani aad hagbado kale ku gali karto muddo bila 6 bilood ka badan marka adeegyo inta ka badan ayay Somtel dadkeeda u diyaarsan la socon hadii la heedo aad u jecelahay sideeda aad iyo aad ugu mahadcelinaa hawlaha inoo bilowday shirkadda maraan ugu gaarsigaan jecelahay weeyaan dhammaan waxaad sheekanay inaan ka qayb galno oo ka faa'iideysano ayaan aad iyo aad ugu rajaynahay bidnillaahi kariim hadii la heedo aad iyo aad buu mahadsan yahay markana waxaan u gudbayaa ka qayb qaataha kale ee xiga marka hore magacaaga bismillaah maxamed maxamuud jaamac halkan waxaan ku hayaa laba su'aalood labada su'aalood mid uun baad qaadanaysaa waa lambar 5 iyo lambar 1 baan qaatay aad waxaad qaadatay su'aasha lambar 1 su'aashani waa su'aal diiniya su'aalaha diinigaas isku tii kullay diinta aqoon badan ma leeyahay laakiin waa isku day weeye su'aashani waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa nabiyullaahi ibraahim wad garanaysaa alayhi salaam aabihii magaciisa la iska rabaa magacii aabihii bismillaah ma garanayo aabihii laakiin tafaasiil kale ma ka haysaa may inuu oday mushrik ahaa sawlugi weeye marka dambe ayaad ku guulaysan doontaa insha Allah hadii la heelaado aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxay noo soo hadhay su'aasha shalaad su'aashani waa alaykum salaam soo joogso waa lagu qasbay su'aashan marka iyada lambar 5 in sideeda lagu weydiiyo su'aasha ugu dambeysay marka hore magacaygu waa علي أيوه علي أحمد أبو بكر علي أحمد أبو بكر أرضية كم تفريع؟ أرضية جامعة ذاتك؟ جامعة هون بريدة الكلية كلية ميديكال لابوراتوري ساينس صح سنة كم صدمة مرسا؟ سينيور باي مقاسم لاستا شاء الله أرضية قبل كاتها مسا قبل هذا ما ينوع حكيم قبل كسنة عيرقاو هذا أرضية قبل هذا كلام قبل كوياش حكيم عيرقاو كورن أديك عيرقاو بس شو جوجي مركز ساوي كتب بورما حكير كل دويه المجال عيرقاوية بورما هذا هرتا متقنا كوسة مية كومبير أنا سبب بدقو عيرقاو ما كلا ورما يا هرتا عيرقاو حاجة كلمة كام عمرضة يبورن واسكميد واي waxay xakeena yaxweeye dhulka buuraha ka sameeyeen iyo cimilada laakiin xaqan waxay kaga fiican tahay 100% oo xaga nabadda waayo xaga nabadda waxay keeneen waxay hadba nabadda iyo aqoonta taas way hadhow marka noqdo waxa insha Allah kulli xog waxaan ka soo waradin doonaa boorma sideedahay iyo qaabka boorma dadka ku nool iyo qaabka dadka loo dhaqmo marka hadii la garto insha Allah حاجة عميلة مركان لبدو أد بوير قوي أد بو قوي كسمين شوية وياه مركان سؤال شكو صح هذي سؤال شيء شلات سؤال شو قد بيسي سؤال شيء الواحد كله هذا سؤال شيء هرتا واحد ملايين يا إن السؤال هذه هذا تبيرتاي سؤال شيء عادي كله أوكي متى عرقابه واحد ملايين يا هنا نقروين إن شاء الله دودوا هذا نقروي مثلا هذا على رجدا كموجي رجين تلك ما كقبضة يا هذا حق بقول كيو تطباطن بقول وي إن شاء الله سؤال شنو واحد كل هذا واحد شيء قصة مقالة كلية صوماليات اللي قد لي مدحوين الصوماليات مركع شيء قصة مقالة يمدحوينها اللي قد لي يسند كل قد لي وصدق في سعرت الله سلام سؤال شو والله يجرى ذاك تحط حاجة سياسة أي مقالة الصوماليات بقى كتاريخ مقالة الصوماليات بقى ومقالة الصوماليات مقالوين حتى دوتان بيتوبيا هاللقطان بجيبوتي أما
koonfur aduu wixii Soomaaliya oo dhan sheegtaa magaalada sheegay mise wax sheegay koonfur waxaad sheegaysaa madaxweyne Soomaaliyeed oo la dilay magaalada lagu dilay taariikhda ha isaga magaciisii magaalada magaceedii iyo sanadka taariikhda kale muhiim maaha haddaad bisha iyo garan weyday wallahi su'aashaas haddaan isku dayo magaalada Gaalkacyo inay dhammaan magaalada Gaalkacyo tahay waa sax waxa kugu cabar maleeyaa ardayda caafimaadka qaadata xagga siyaasadda ma iyagu xagga un bay ka sheekeeyaan caafimaadka noqon leeyahay ka jawaab lahaa inay waxa socialka iyo ardayda kale waaye aad iyo aad baad u mahadsantahay insha Allah marka dambe ayaad ku guuleysan doontaa soo dhawow markan su'aalihii way dhamaadeen waa ka faa'iideysigii tii la garan waayo dhan baa laga faa'iideysanayaa hal midun baan lagu soo bandhigayaa magacaaga dadka u sheeg magacaygu waa Cabdiraxmaan Nuur Afraad Cabdiraxmaan barnaamijkan hore ma uga qayb qaatay bismillaah maalin kasta soo dhigtaba waan ka qayb qaatay imisaad ka qayb qaatay mise goor dhowr sano darabadaanta ma keentay ma Ramadaan tuu barnaamijkan soo yar dhawow waa Ramadaan tanuun marka Ramadaanadii hore laakiin waad ka soo qayb gashay waan ka soo qayb galay maxaad ka xasuusataa in lagu weydiiyay Ramadaanadii hore aniga waxaad weydiisay maalin dalka ugu dalka badan islaamka dadka ugu dadka badan leh dalalka islaamka ka xasuusta Indonesia صح جغرافيا isku fiicantiinta aad waayahay macallimiinta kulli xagga loogama dheereeyo su'aashan waa su'aal aan ka fogay juqraafiga waa su'aal taariikha صح waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa laba qodob oo kamid ah heshiiskii lagu magacaabi jiray degada Buursi Tiriiti mucaahadadii gada Buursiga laba qodob oo kamid ah sheegaysaa mucaahadadii gada Buursiga uu la galay Soomaaliya gumeystihii Ingiriiska soo yar dhawow waxoogaa soo yar dhawow xagga sidan u soo joogso yar sugoolaal raallihan iyo marka waxaad sheegaysaa laba qodob oo kamid ah heshiiska ma garanaysaa waan garanayaa inuu heshiiska tafaasiil kale ma ka haysaa intaanad qodobadiisa sheegin way marka aad kay weydiin doontaa laakiin waxa ka mid ahaa dawladda meesha tibitay horta inaan dalkeeda kaga dhigin waa kow dalka hadduu ku dhashana inaan lagu aasin haa uu qaato wixii ka dhinta dalka loo ogolaado waxa ka mid ahaa oo kale in hal qodob oo kamid ay ku wada qornaayeen labadan aad sheegayso oo mid saddexaad ka dhiman tahay hal qodob laakiin qodobka ka dhimo ku buuxinayla saddexdaasi hal qodob bay soo ahaayeen hal qodob labaad u bad keenaysaa qodobka labaad waxa kamid ahaa imika qodob waa ka haynaa qodob inaanu ku dhalin inaanu ku dhiman iyo inaanu ku dhiqin laftirkeeda marka mid bay waxa qodob waa ka haynaa imika qodob kale waxa weeye markay u baahdaan dalkooga inuu ku wareejiyo aad iyo dad waasatahay labadaba soo qabatay qodobadii kala dheeraad hal wax ma ka xasuusataa qodobada kale meeyimka waxaan ka garanayaa dadka heshiiska qoraal baa la sameeyey qoraalka waxyaalihii lagu sameeyey صح waraaqamaahayna saam bay ahayd harag saamo oo la soo idimeeyey maxaa lagu qoray qalin noocyo lagu qoray qalin wax lagu qoray qalin sida wax quraanka lagu qoraa khad kale ayaa lagu qorayey oo ka sidaa u ballaarnaa lagu qorshay ila dawladii dambe Soomaaliyeed way soo gaadhay markaa gada Buursigu waa dawlad beeyay leeyahay aragaas inaga lahayn weel waxa ma saxayna lahayn meeda markii hore maadaama dawladdu la wada Soomaalida ayuu xaggaas yeelay masaaswi halkii heshiiskaasi ka dhacay ma taariikhda ku maqashay heshiisku seelciya gaarkeedu ka dhacay badda gunteeda ma seelciya agteeda badda soo dhawow ha fogaan badda la isla tagaa la yidhi ma wax la taacdiin xadaaradii odayadii ka soo jeeday adal si aan dhulkooda hadhow tolo loogu xujay ayay badda ula galeen baa la yidhi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad ku guulaysatay
abaalmarina ka soo qaadnay shirkadda somtel adeegyadeeda ma isticmaashaa bismillaahi raxmaan internet horta wax kale ma isticmaalo hay nooceed ku shubataa ama dhaatada toddobaadlaha dhaatada may wax ku shubnaa billaha $10 yaa ku shubtaa sax unlimited-kana ma isticmaashaa unlimited-ka kelma kanba ma dhammayn karo hay kaaba inta la soo daayo ma dhammayn karo adeeg eSIM leedha oo dhowr simikaadh dad lahayd hal telefoon ku isticmaalayso oo samtel ayaad ugu imanaysaa eSIM baa leedhada aad baan u jeclahay hadii la helaa macal barnaamijkii kale kaliskii soo daayay aad iyo aad baad maadsantahay marka la waxa ku soo dhaweynayaa asxaabta kale inagoo ku guda jirna su'aalaha faa'iideysiga su'aashii labaad ee la garan waayay waa su'aal aad u fudud marka hore magaca bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Salama Cabdikariin Sheekh Umar weeye waa ku dhawahay barnaamijka haddii ka soo qaad imika kuma weydiinayo su'aashii laakiin ka waran haddii aan ku weydiiyo magaca su'aal libya su'aal adag baan su'aal basiid weeye firsi mal weeye su'aal ka fudud ma jirto miya ma jirto ka waran haddii aan ku weydiiyo su'aasha la mid ah okay waa ready baan jeed helag ba qabtaa markay su'aal noocaas ah aad ku guuleysan karto de 100% baan qabaa ma rajo yar baan qabaa weeye waxaad noo sheegaysaa taariikhda hijrigu maanta waa imisa taariikhda hijrigu waa 1443 hijriyada ramadaan 7deedii bishii ramadaan ukaadi 3 iyo 45 xitaa isaga sheegay idinku yiri daaya exiro de horta isdeji xagaa kamaradana yara eeg siyoro deganoo qumaatiya u sheeg diileena taariikhda hijrigu maanta intay tahay 1444 hijriyada bishii ramadaan 7deedii baa maanta joognaa bishii ramadaan waa bishii misaan oo bishii 9aad sanadkii hijriyada weeye aad iyo aad baad maadsantahay arday ma taan maleynaya oo garajood gareeyeen aqoonyahan jaamacadda ka baxday kulliyadda caafimaadka ka baxay misasna koor waxa ka baxay 12 doctoraaga caadiga tahay may laboratory baan weeye aad iyo aad baad mahadsan tahay marka nooca ku siinayna abaalmarina ka soo qaadnay shirkadan Somtel waa shirkadda wadaniga dadweynaha ma isticmaashaa si fiican maxaa kamid ah adeegyada hore adeegyadeeda internetka ka isticmaali jiray iyo dahabta ka isticmaali jiray de wax walba ka isticmaalaa imikana waxaad ka soo helaysaa adeeg saacid leeyahay oo haddii telefoonkaagu meelaha kaaga lumo adaa xayiranaya okay soo dhaweynaa adeega dig 2 eber 3 xun ba taabanaysaa fargees haddii la helo weeye aad iyo aad baad mahadsan tahay markana waxay ag jooga mid kale waa su'aali laga faa'iideysanayo magacaaga waa khadar daaci khadar weeyaan daaci khadar magacay waa daaci khadar weeyaan daaci baa tahay daaci ilaahay shaqaysaa ilaahay dartuu shaqeeyaan sax ilaa iyo deegaanada diinta gaarsiisay ilaa halkee kugu fogay waxa nagu fogay inkastoo daaci yarahay laakiin ma fogaan laakiin afxas bay ku fogeen magaalada duleedkeeda ma insha Allah meel ka dheer waad tagi doontaa diil hayraado way su'aashani waxa weeye waa su'aalka faa'iideysiga ya su'aashan waxaad sheegaysaa magaca nabi ibraahim aabihi magaciisa baad sheegaysaa nabiyullaahi ibraahim khaliilullah magacii aabihi baad sheegaysaa waan sheegayaa insha Allah magacaygu waa Khadar Cabdiwaab Ali su'aasha hadda isku daro waxa weeye nabiyullaahi ibraahim magaca aabihi waa Aazar weeyaan ما شاء الله عباده هواد يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله العظيم ما شاء الله الله أكبر كيو داعينا واتهاي لين على حافظ واتهان مليلي قراك حافظنا يا صدق كون حفظين معلم عن القرآن وانا ما شاء الله ما شاء الله ورا دودي قبطه ادو كلا سؤال شري in lagu weydiiyo ma in wadii gabatay aad iyo aad baad maadsantahay waxa ku siilayaa abaalmarina ka soo qaadnay Somtel shirkadda Somtel adeegyo kala duwan ayay ka soo bandhigtay marka hadii la yiraahdo aad uma isticmaashaa Somtel waan isticmaalaa iibka ugu dambeysaan lacag saad ka soo dhigeen hadii la waaye wada hadii la yiraahdo halkaas kaga hayn doontaa adeegyada Somtel aad iyo aad bay u mahadsan yihiin imikana waxaynu joognaa guntii iyo gabagabadii waxaynu soo gaadhnay su'aashii dhinaca baraha bulshada oo aad kaga soo jawaabi doonto xagga Facebooka iyo YouTube-ka mar walba la soco shuruudaha
muuqaalka inaad like saarto iyo inaad asxaabtaada aad la wadaagto waxay naga caawinaysaa in muuqaalku faafo sidoo kalena waxay kaa caawinaysaa in jawaabta saxda ah haddii aad soo qorto aad ku guulaysato su'aashani waxay ku leedahay iyadoo duuduuba waxaad sheegaysaa magaalada keliya ee Soomaaliyeed ee lagu dilay madaxweyne Soomaaliyeed marka saddex bay isku saaran tahay aad iyo aad waa magaalada magaceedii madaxweynihii lagu dilay iyo sanadkii lagu dilay saddexdaasi oo isla socda ayaa laga rabaa marka su'aasha dhinaca baraha bulshaduna waa taa guud ahaan waxa intaas inoogu idil barnaamijkeennii su'aalaha Ramadaanta oo maanta ay si gaar ah u maalgelisay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo soo kordhisay adeegyo ay ka mid yihiin oo isku dhammaystiran oo internet iyo prepaid baad ku wada shubanayso adeega kale ee saacid oo ka caawinaya lacagaha ka qaldama telefoonada ka luma iyo adeegyo kale oo ugu baahnayn iyo walibana adeega kaydso oo isaguna ka caawinaya inaad hagbad gali karto xagga lacagtaada iyo dahabka guud ahaan waxaynu inta ku soo gabagabeynaa barnaamijka waa aniga Ibraahim Suxufiya waa farsamadii Shucayb Bigeys taniyaytayni dib u kulmi doona barnaamijkan la mid ah inta ka horeysay ilaahantii waxaad ku dhaafayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh